بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Raxmaan Axmed Warsame kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Burco halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha xalaasha ee ummadda Soomaaliyeed ee ku yimid rabitaanka shacabka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaan leeyahay Ilaahay ka dhigo midan ku shacabka Soomaaliyeed ku hungoobin waxaan doonayaa halkan inaan kaga hadlo xarigii walaalkay Cali Dhanaaniyo iyo Maxamed Galeeriyo sidoo kale Cabdimaag Muuse Caldoon labada abwaane dhalinyarada ku xidhan magaalada Burco iyo sidoo kale Cabdimaalik oo ku xidhan magaalada Hargeysa waxaan isweydiiyay in badan maxaa lagu xiray maxay kasbadeen ma kiis qaran bay galeen ma garanayo su'aalahaas oo dhan bay iswada weydiiyay marka maanso la yiraahdo caru noqo ayaan ku cabirayaa dareenkayga maasada caru noqo ereyga caru noqo waalidku markay imatalan ba hadaan idin safiro dadka Soomaaliyeed qofkan fahmayn ereygaas markuu qofka yar dambi galo waa la dhangadeeyaa deedna caru noqo waxa hebel ugu baa la yiraahdaa deedna qofka yar wixii sidoo kaga caaga markaa waxaan leeyahay Cabdimaalik Muuse Caldoon iyo Cali Dhanaaniyo iyo Maxamed Galeer waariyaan caru noqodaas idin ku dhicino bal hadhow kulay jeelka hadii Ilaahay idin ka soo furto iyaydaan noqonin dad intay cabsoodeen hankoodii himiladoodii iyo rajadoodu ay hoos u dhacdayo mar walba lagu xuuxiyo xabsi oo la yiraahdo caru noqda waxa hadii kala meesha ba ku noqonaysan noqda dadka run sheega fikirkooda dad waxa maskaxdooda ku soo dhaca ee wanaaga ama wixii xornimo ay kaga hadli karaan ama si kasta oo xorriyadooda inay ku hadlaan oo aanay noqon dad ka cabsada jeel iyo cunaqabatayn iyo xarig toona marka maansada caru noqo waxay ku bilaamaysaa nimaan ciido hooyiyo carigu ku awabiyo ka dhex tagin ciidiisii hada lagu ciriishiyo hadii uu caburiniyo fikir lagu canaadiyo aqli laga gumaystiyo uu ku jiro calooliyo ka tahriibay haw caban waxa oranade muxuu tahriibay qofkaas way haduu qofka xorriyadiisa uu tahriibay soo doonu yeelaya kii ka tahriibay haw caban kii cararay haw didin kii cid mooday Yurube irsaday Talyaaniga aqli xumaha moodina badu kay cunaysay ku cashaysay haadiyo u garaabay kii cadow cidla dhexe ku helayo macanaananaye aku taban isciishay cadowgeed ma garatoy aqli gaabiye badanay gaala calanka saaray shisheeyaha oo cararay iyaduna isciilay Soomaalay cawaanay aqli gaabiye badanay aqli kama kortaa tahay qabiil caabudaa tahay curadkii ka soo baxa cunaqabata saaray kii caawin laa iyo halyeeyada ciilay caruuran korayno xinka caadow lahay caawiyaha Ilaahay cadowga ha jabiyo ciidan samada laga diray carigaaga horumari oo kale Ilaahay wax ku soo diro waan leeyahay Soomaalida Ilaahay waxaan uga baryaa inuu u soo diro ciidan uu samada uga soo diray oo xoreysa oo midaysa oo hagaajiya oo Ilaahay ha ka dhex saaro cadowgooda maalin ba qaar la shiraya ee maalin ba mid meel geenaya ee dhaqamada sida aadka u foosho xun ku sameynaya ee aan iska garanayn Ilaahay ha ka saaran leeyahay codka kale waxaan yiri muradada dalkaygow geesiyada cajiibkow afka ciidankooda kuwan caasin dhaqanka suugaanta curiyow halka waxaan kula hadlayaa abwaanadii dhalinyarada ahaa marka suugaanta curin jiray ee abwaanada ahaa aan dhageysan jirnay maasooyinkooda kuwan caasin dhaqanka suugaanta curiyow abwaan Cali Dhanaanshiyo haw caban galleeyo waayaha cakirano haw caban galleeyo waayaha cakirano maskax caafimaad liyo aqligii fayooba cabsi ha u bedelinin war ha cabsanino ha baqanine aqliga fayooba maskaxda caafimaadka qabtay ku shaqeeya madaxweyne caaniyo cuqaal loo hanweyn yahay adiga ka calan dheer kumankays cajabiye aqilada isbidaye caawiyaha miskiinkow coldoona waxa ciisho fikir caafimaad